حديث كان نبينا عليه الصلاة والسلام واقعين مركان ايغو كملي حنكرو نينكي وراركي مالنتي دويد سو بخايي إلين دولadu yada faafisay oo tiri warqadaha suuqa publiga dhigtay oo ku sii deysay warbaahinta Abdi Malik Muuse Coldoon xarigiisa shan qodob bay ku eedeeyay intii akhriday way akhriyay xadiiska nabiga bal alayhi salatu wassalaam oo fiirso yukhawwanu fiha al-amin qofka aaminka ah ayaa la oranayaa waa mujrim propagandada iyo xumaanta la saarayo waayo waxaad u fiirsataa ninka Abdi Malik Muuse Coldoon la yiraahdo saddex qodob ayuu caan ku yahay oo bartiisa Facebook ku faafiya waa markii koobaade nin laga roona ah oo la qabo oo dalka la keenay oo isku soo casuumay amba ha gartaan amba yaanay garanine ayuu ninkaasi waa laga roonay waa raga qowmuluudka baa faafiya ee la qabo amba ogaada amba ha ogaanine ninkaasi wanaagi nooma wade inaga joojiye qodob bay ahay uu qoray isagu qodobka kale labaadina wuxuu ahaa Joy Isa gabar la yiraahdo oo baadariyad ahay oo diin faafinaysay oo 24 saac gudahood dalka ka dhooftay waxaaba ku lahaa biladin la siiyo in la soo dhaweeyay wargabada baadariyadii waa waraabi xalay xeredeena u soo dhacay iska ilaalino hagardaame wada waa baadariyade kiibaaba la yiraahdo waxa Soomaalidu tiraahdaa waraabi xalay u soo dhacay xerada ka waran hadii la yiraahdo adigu u shaqaado xoolaha foofi oo deeqay hadhowto la gabalku markuu dhaco dib u soo xaree iyagoo dararsan oo aad dabada ka wado noocaas oo kale weeye gabadhaasi naaficmaysa inaga ilaaliye qodob bay ahay qobka kale saddexaadina waxay ahayd aad u caan ugu ahaa xarumaha guracan ee dalka yaala ee baadilka ah ee aan shaxumada wada warina wadi maayaan inaga ilaaliye ilaahina ka cabsada waa xumaan nin aamin abu ahaa nin wanaag wada buu ahaa saddexda saacaan ku ahaa waxa la yiri qaridumis buu wadaa ubad ku ceebeynaya oriyooyin buu ceebeeyay wallahi inaanad ku soo heli karin bil ka hor baan baare daba iyo dacal beejkiis dumar u caayay iyo caruur u caayay iyo caaro wax ka sheegay qof muslimka ah dhagtiisa iyo sharaftiisa iyo inaad ataagaraysaa intuba waa xaraan diintuna weydiitay cid ataagaraysay isaguna muu caayin cidina ma caayin waxaan aad u xasuustaa qisadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay Habiibun Najjar ninkii ahaa saddex nabi baa Ilaahay soo diray qoom buu u diray isagii baa istaagay Ilaahayna ka cabsada xumaanta joojiye warina wadi mayso xumaantani daaya way ma jarar habaabiyana waxay yiraahdeen saddex nabi baaba joogay kan maxaa meesha keenay dhiirana inaan ka yari sidoo hadla isagu way qabteen inta hoose ay dhulka u galiyeen way aaseen miishaar bay dusha ka saareen muxuu leeyahay Ilaahay ba soo guuriyay qaala ya qawmi ittabi'u al-mursaliin wa rususha raaca wanaaga hal idinka helo aamin baanay khaa'in mayhi runtayda qaata deena weydilay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri fi surati yasin qila adkhulil jannah jannada gal qaala ya layta qawmi ya'lamun alla qawmkaygi may dareemaan nimcadan iyo jannada aan galay bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin kuwa la sharfay ee janna la siiyay ayaan kamid ahaa taasan xasuustaa xal ay Coldoon dumar buu ka hadlay caruuro ka hadlay caar buu ceebay waa ma jarar habaabin waana been shanta qodob liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina haq wa haq baadilna wa baadil wixii lagu eedeynayo hadii la xirayo iyo hadii la deynayo taasi dawladda u taala laakiin shanta qodob ee meesha yaala waa been cadaana saddexda qodob ninka aa soo waaya wax qodob kale afaraad hela oo atahadda inuu keeno ma keeni karo saddexdaasina waxay ahayd dahab iyo sharaf iyo milgo ku lahaa qofkana waxa fiican uu hagaaga uu nafisa markuu ku leeyahay war hagaag laakiin uu laba jeer gubanaya qofku isagoo wanaag ku wada hadad wanaagiisa caburiso oo aadiido oo aad tiraahdo anaga runta noo sheegi runtaada hayso daacad ma tihiide dambiilaad macnaheedu waxa weeye arrin sax ma aha waxaana fiican qadayada noocaas oo kala ah in aan laga labalabayn run in laga sheega fiican
waayo waxa xun oo la yiraahdo sidii sheekadii xujaninkii la oran jiray Juxaa aan iraahdee ayaa wuxuu tilmaamaa Juxaa rida madowna garle riyaha kalena garle hebelna garbuu leeyahay hebelna ma qaldana sax ma qaladka waa fiican in la yiraahdo waa qalad